Assalaamu calaykum. Waxaad nagala socotaan sheeko show barta laga helo kaydka sheekooyin xikmado ku dheehan. Hadda ka hor maalmaha ka mid ah waxaa jiray nin kawaanle ah. Waxay shaqadiisa ahayd in uu subaxii waqti hore soo kaco intuusan waaga baryin. Kadibna xoolaha suuqa berri in uu ku gado uu rabo soo qalo soona jarjaro. Kadibna gurigiisa tago soo nadiifsho waaga markuu baryana suuqa imaado oo saas hilibkiisa ku gato. Subax kastana saasuu shaqadiisa u qabsan jiray. Laakiin maalmaha ka mid ah buu wuxuu arkay haweeney dhiig ka da'ayo. Wuxuu isdhahay caawi. Markuu u dhawaadayna wuxuu arkay inay mindi ka taagan tahay qoftana nafta ku sii jirto. Mididii uu ka baxshay kadibna dadaa ku soo baxay waxayna u maleeyeen inuu asid dilay. Sababtoo ah dharkiisana dhiig waa leeyihiin mindidana asaa gacanta ku haya hadda. Ciidankii imaaday asaa dilay naagta ay dhaheen dadkii ugu horreeyay oo arkay asoo mindida ka siibayo. Maxkamadda la geeyay inuu asi ahayn dilaaga wax cadeeyana waa la waayay. Saasna dil toogasho loogu xukumay iska daba wareeg 2 bil socday kadib. Markii tiirka la soo istaajiyay loona diyaarshay in la dalandalo buu wuxuu yiri waxaan rabaa inaan arrin idiin sheego inta la idilin ka hor. Hadda ka hor waaga nin dhalinyaro ahaa waxaan ka shaqaysan jiray doon yar oon aniga lahaa. Shaqadeydana waxay ahayd doontayda inaan ku qaado dadka si webiga magaalada dhaxmara uga gudbiyo qofkii raba inuu geeska kala aado. Maalmaha ka mid ah baa waxaa ii soo kortay doontaydii gabadh aad u qurxaneed. Waan ka helay waxaana ku fakaray inaan aabaheed u tago oo ka doonto. Nasiib daro laakiin way i diiday. Anoo aad u careysan baan iskaga soo tagay gurigoodii. Sanado kadib isla gabadhii oo ilmo sidata ii soo kortay doontaydii. Sheekadii buu sii wado wuxuu yiri waxaan isku dayay inaan xoogo. Way ila dagaashay markay i diiday baan waxaan ku iri cunugan wadato ka dila hadaa i diido mar labaad. Markii saddexaad markay i diiday baa intaan cunugii qoorta ka qabtay biyaha madaxa u galshay. Say ii diidaysay baa cunugii nafti ka dhacday. Iyana hadday dagto say ii sheegin baan webiga ku tuuray. Waxaan islahaa qof kuma oga. Isla markiiba waxaan gaday doontii waxaana bedelay shaqadeydii saasaana ku bilaabay inaan noqdo kawaanle. Waxaan sheekadan idinkugu sheegayaa waxaan haatan dareensanahay in Ilaahay ii jeeday dulmiga gabadhii cafiifada ahayd aan u geystay aniga bisna ogaa. Laakiin haatan Ilaaha iga aaray. Wax markasta xasuusataana qof markaad dulminaysid maalin lagaa aari doonaa. Shalayna wax kuuma tari doonto si xanuun badan baa lagagana aari doonaa. Haddaa adduunyada ku fakatana aakhira ku fakan maysid. Ugu dambays maxkamadan waxaa wargelinaya gabadha mindida lagu dilay aanima dilin oo qofkii dilay magaalada ka soo raadsha. Anna waxaan tiirka u saaranahay taan ani bis ogaa.